daahir caata weynow mid baan ku leeyahay nin raga dil waa gaya qadafsa waa lagu diloobaa dagaalna waa aqaanaa colaadna waa aqaanaa wax u dhexeeyasa ma garanayo reerkaa tahay waa garanaysaa aniguna kaanahay waa garanaysaa abadan baanu isrifayn u malayn maya saaka haddaan gacmaha isgelino ama aan saacad isku falagadusano in xataa ilaahay dambi iga qorayo u malayn mayo aashaa baan ku leeyahay aashaa ninka yiri waxbaan gani anoo goliya cayn jooga oo badda garaacad baan gudub u weydaarin oo ragga ay ku gaardiyaan guud kaga keeni godka lagu cadaabiyo muxuu gahu been sheeg godka lagu cadaabiyo muxuu gahu been sheeg لا عايزهم معلمة عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمركة هوري أصحابتي إذا قالي هل كان يقال صعدو يقرأ على هذا حداد ويدين لما مع الموت مشغول بدن وأنا هكدي واي كنا waxaan rabaa jaanisna horay ugu waayay laba maalmood meelahaasaan jaanis u waayay odaygii daahir ahaa oo haddii alla kuu roo yahay hadal igu soo yiriyo iga laalaaday hadalkiisa ay ka mid ahaayeen ayuubow nuclear baan kugu dhufanaya Hiroshima iyo haddii alla kuu roo yahay makhaayadda anaa kuu furay iyo anaa kuu afuufay iyo haddii alla kuu rooy dhowr kalmaan rabaa inaan idhaahdo sharma boy xaaladiisana dhowr kalmaan ka dhaxaya ayadana dhowr kalmo baan ayadana ka oranaya waxaan ku hormarayaa midda daahir waxaan leeyahay abwaa Soomaaliyeed baa waxa laga hayaa oo ninka loo jiray aadan muxuu ahaa ninka loo jiray Saymaha Abdullah Hasan ninka yiri waxbaan gane anoo goliyo cayn jooga oo badda garaacad baan gudub u weydaarin oo ragga ayl ku gaardayaan guudka kaga keeni godka lagu cadaabiyo muxuu go'o been sheeg godka lagu cadaabiyo muxuu go'o been sheeg haatan waxaan leeyahay daahirow media waa madal inta joogtaana waa marxaanti media ayuubow anaa ku soo saaray iyo halkaan hadii aan ku rooyo xaasha lillahi hadal aan kaagayo ma aha qadaf weyn ugu tahay qadaf nin raga dil waagayaa qadafsa waa lagu duloobaa waa dad af Soomaaliga qari ka tahay waad garanaysid inkastoo aan garanayo dad af Soomaaliga ku fiicnay waxaan ku leeyahay laba nin saaxiibaan sidaas sheegtay anaa hooyo sheegay umaduna nagu ogtahay balse mid saaxiib kuma nihin qadiyada qofnimo ahaan saaxiib kuma nihin xaash awjuud maalinta aan Soomaalinahay saaxiiba laba qof oo waxaan nahay isku jeedada Soomaaliya ka rogo laba saar saaxiibtinimadan caadiga oo de wax wada cunkayo isla markana ayadana waa kuwa socon karnaa laakiin qadiyada markay qabiilka noqoto de wacal matid ana wacal ma taa saaxiib kuma noqon karo xaasha wajud maalintaada wiya istaagtid daarood baan taagnahay maalintaad hiraab istaagtid haddii alla ku roon yahay harti baan taagnahay maalintaad haddii alla ku roon yahay habar gidir istaagtid majeerteen baan taagnahay maalintaad sacad istaagtidna Umar Maxamuud baana xaasha wajud taa qalbigaaga geli hadalkayguna ha ku jeexo taas waa mid oo qadiyad xaasha wajuuda kuma saaxiibi karno kumana oran karo anigu reerkaaga ha raaci adna ima oran kadib haddaad tiraahayna hadal malagi galay wey taas waa mid tan labaad waxbaan ku tarayo makhaayaddan anaa shiday adeerow gacaliyow ma un aakhiraad baa warramaysa un aakhiraad miidiyuhu nin kastaahay wuxuu ku joogaa gafuurkiisaas iyo xiniyihiisaas inaan gafuurkayga iyo xiniyahayga media ku imid ilaahayna og inta joogtaana og waa madal iyo marxaanti midun waa madale ummaduna waa marxaanti intaasina og inaad ummadda been u sheegtid ama islaamaha masaakiinta ayo haddii alla ku roon kuu sacbiyo haddii alla ku roon yahay aad xuurtada ku haysto xuurtada inaad been u sheegtid ma anoo shacbiyad leh ummadayda saddex khamkhamkaygu shidan yahay isbaranay
mid kaaga baa dhici mayo meelaha haddii ala ku roon yahay lacagta laga furo iyo monetizingka anigu jaa-is maahi baashana been kama sheego inaad meelaha ay tiyo halkaas haddii ala ku roon yahay monetizka laga furaayo halkaa xaasha wajuuda kaaga abaal dhici mayo laakiin anigu waxaan adiga kugu qabtay ama aan saaxiibtinimo kugu qabtay ama haddii aan hiil aan kugu garabgalay halkaa ka sheegan mayo kuna mana sheegan mayo nin ragana xaalkii maaha oo haddaad rag xaalkii taqaanid wey taas waa mid laakiin muhiimku waxa weeye inaan ku dareensiiyo markii soomaalinimo anigu horta shaksi ayub ahaan shaksi waxaan ahay soomaalinimada waxa la yihahda aaminsan kuna dhinta laakiin hadda waa laakiin haddii hoos loo dego oo shaksi kasta ahow haddaad hoos iga degatid oo soomaalinimo ku anfici weydo dee meel aan shafka saarto oo haddii alla kuu roo yahay dee inta qof bini aadan u hadli karo suu rabade u kaftami karo baan kasoo jeedaa oo ma ahi haddii alla kuu roon yahay nin loo caga juglayn karo mana ahi nin haddii alla kuu roon yahay islaama diyaarada umarsan karaa ma ahi xaasha wajuud yaan isaflagaadayn qadaf ma rabo yalkaa inaan cid ka caayo ma rabo beel inaan caayo ma rabo qof kale inaan caayo ma rabo daahir laba ninoo saaxiiba waa nahay laakiin qadiyadaada iyo tayda ma ku saaxiibi karno bulutukaalka aan ka wada sheekayno ma ku wada saaxiibi karno fakarkaalada kaygaan leeyahay waxaa soo haray midda qabiilka maalintaad hawiya istaagtid daarood baan taagnahay maalintaad hiraab istaagtid harti baan taagnahay maalintaad haddii alla kuu roo yahay habargidir timaadid majeerteen baan ahay maalintaad sacad timaadidna cumar maxamuud baana shafkana isku garaacan mayna aniga adu aqaligu hadduusa kaa dhumin waa ilaab garan taasi waa midda sharma boy hadaladiidaada waxaa ku jirdhay sharma boy in qabiil lagu taageeray waxaa aniga hor sida adiga iyo muxuu ahaa ninka la yihahdo shiine oo hebel baan kuu dakanaynayaa iyo hebel baan waxiisa saarayaa iyo haddii alla ku roon yahay nin miskiino haddii alla ku roon yahay aan waxba dhimin oo ninka la yihahdo muxuu ahaa ii sheega magaciisii kuu shiine u dhaaranayay xaasha wajuuda taas anigu idan ma qabo fakarkaas waana fakar khaldan shiinana waa u sheegayaa nin miskiino fanaano walaalkiino inaad haddii alla kuu roon yahay akoonadiina iskugu dhaarta adiga shiine akoonada iskugu dhaarta anigu haddaan labadiina midii dhaaranayo akoonkiina u dhaaranaya ma ahay nin miskiino haddii alla kuu roon yahay fanaano walaalkay ah inaan haddii alla kuu roon yahay halkaa wax ka sheegaa khalad baan u arkaa taas joojiyana arrinta sharma boy soo hadhay sharma boy arrintiisa anigu marnaba wax aan qadiyad ka geli karo ama gorgorta ka geli karo ma aha oo wallahi maaha oo bilahi maaha oo tallahi maaha sababtana waa kuu sheegaya sababtaan kuu sheegaya waxa wey daahirow sharma boy waxaa mar kasta halkaas xoola uu kaa dhacay maada sheegin noomaada sheegin hanti u ku haysana noomaada sheegin waxaad ku haysataa keliya waxa weeye shacbiyadiisa xamar baan u dhashay xamar buu shacbiyad ku yeeshay waa intaas oo keliya waxaa ku haysta laakiin qadiyadiistaan uta kama geli karo gorgorta kama geli karo adeer baan u ah sharma boy waad garanaysaa cumar maxamuud ka sii tag isxaaq cumar sii tag cigalla ka sii gudub wiilgii adeerkiisaana kama geli karo ma ka geli karo sharma boy waxaan leeyahay adeer taladayda saad u qaadatay iyo xiniyaha ku soconaysid intaba waa kugu garab taagna inaad fanaan soomaaliyeed tahay waa kugu garab taagna haddii hoos lagula dego inaad wiil haddii alla kuu roya majeerteena tahayna waa kugu garab taagna markaasaaan leeyahay qabyaalad uma lihi sharma boy ka kaxee haddii soomaalidiis ka kaxee oo qabiil ola galna maahi aniga laftiga qabyaalada kasoo horjeeda balse qabiilku waa litacaarafu litacaarafu nebiga xaafadiisa ka bilaabay inuu diinta gaadhsiiyo alquraysh buu ka bilaaba lagu hiliyey diinteennu waxay nagu soo gaadhay ayadoo qabiil ahaan rag ugu hilinaya oo mudalib oo adeerkiisa uu ka mid ahaa oo yidhi cariyaa taabta waa wiil adeer u ahay sidii oo kale wey qabiilku ma aha inaan sharma boy ka dhigayo nin qabiil
maaha inaan ka dhigayo soomaalidii iyo reer xamarkiisii iyo asxaabtiisii iyo dadkii soo garaqabtay iyo taalantigiisa meesha kusoo kala baxsaday iyo magaalada soomaaliya inay xamar tahay iyo maaha inaan kasoo horjeedo maaha inaan ka dhigayo nin reer garow inaan ka dhigaya maaha reer gaalkacyo inaan ka dhigaya maaha balse soomaali waa ii soomaali aniga sharma boyna waa fanaan soomaaliyeed aniguna babag fikir soomaaliyeed baan soomaali baan anigii asagu wax ku nahay soomaali baan wax usoo jeedinana dhegaysata balse qabiilka anigu waxaan u adeegsadaa litacaarafu marka laga tagana markaan leeyahay war sharma boy shafka u garaacanaya sidii nabi maxamed adeerkii mudalib shafka u garaacday baan u garaacanaya waana waajib diiniya hadda ogow waa diiniya maadiba marka maaha inaan leeyahay inaan qabiilka qof dulmi ku garabsiinaya maaha walaalka hadduu khaldan yahayna uhili haddii laga khaldan yahayna uhili haddii laga khaldan yahay uhiliyo garab istaag sibada sharma boy oo kale hadduu khaldan yahayna uhiliyo qabo taasaan u isticmaala daahir marka waxaan leeyahay akoonkan iyo waxaan iyo haddii alla ku rooyo khumkhumka halkaa iga shidan oo youtube iyo facebook iga shidan laba xiniyood iyo gafuurkaygaasaan meeshaa ka umi u malayn mayo ilaahay mooye aadana hibada uu siiyey inuu iga qaadi karo una malayn mayo inaan qof u hoos fadhiisan karo daahirow uma hoos fadhiisan karo qadiyadda aniga iyo adigana saaxiibtinimo halkaa ha noo taalo balse mid ha ka yaabin hana ku hawoon inaanu mid ku saaxiibno qadiyadda reerkayga aan kugula saaxiibo waxaa soo haray waxaa ribood iyo fatrakadha iyo anigu mid baan aqaanaa sida loo dagaalamo waa aqaanaa sida loo dagaalamo ilaahay waa baray dagaalkana mid baan ka aqaanaa anigu aan isdilan ka aqaana nabadda mid baan ka aqaanaayo aan isdilna ka aqaana waxa udhexeeya ma aqaan waxee udhexeeya ma garanayo daahirow aan isdilna lama aqaana isdilna lama aqaanaaye labada igu soo bareer laakin khiyaari xaggaan ka dhacayaa iyo haddii aan la ku roon yahay daahir caata weynow aniga adigu ballanay intaasaan ku leeyahay yaaquub siyaad yaaquub bidaar mid baan ku leeyahay daahir cali soo way ku qaatay kuma dhigo daahir cali soo way ku qaatay kuma dhigo orod haddii aan la ku reedo naga fadhiiso waxba hana tarine warmuu dila doornay wuxuu yidhi gabaygi muxuu ahaa waa ilaa weyn adeero waxba hana tarini adeero naga tag alla adduunya waxaa weji xumada waxay timu kaaga caraneen nadaa khayr allaha ku siiye nadaa daahirka ku qaatay kuma dhige intaasaan leeyahay mid kale waxaan leeyahay safarkii maanta sharma boy garowe maanta ka deg garowe buu maanta ka deg si laan dheerinima alla reerkaygu xasana jecela alla reerkaygu fiicana mar alla markay haddii alla ku roon yahay dhiig badana waa idinku taageerayaa reer garowe waa ugu hambalyeynayaa sida nasabnimada leh laandheerannimada leh aada usoo dhaweysteen sharma boy waxaan leeyahay good waxaa tusteen qofka uu yahay hadalkiisi waxaa ka mid ahaa hadalkii sharma boy uu garoonka ka dhex yiri waxaa ka mid ahaa sida tan maanta waxaa la sheegay garowe waxaa la sheegay ictisaamkii iyo nimankii al-itixaadka ahaa oo xataa waddanka haystay diiday show dhaco waxay dhaheen waa fadwoodeen maanta masaajida ka fadwoodeen waxay dhaheen sharma boy maanta in loo istaagahay waaba diiniyan bay dhaheen waaba xadiis meel xadiiska keenay ka sheeg saasay u sii daayeen waxay dhaheen garowe gaalkacyo ilaa boosaaso qardho ilaa xaafuun ilaa haddii alla ku rooyahay meesha la yidhaahdo muxuu ahaa baran
ilaa baargaal ilaa laas qoray ha looga tumaaliy ha looga tumo asagana waxaa leeyahay adeer gacli horay soco garow kaga bilow show saa u kala xiran qardha ku xiji gaalaha u dambaysi haddii alla ku roo yahay boosa ku xiji saa soo laabo halkaa bari u deg laami ka talow soo laabo halkaa baran ku dhufo laas qoray kusoo dhufo laastiga galkacaybow galkacabirka ka duulaysadimow reer puntlandow garab istaaga wiilkaas garab istaaga ha u garab istaaginina inaad soomaali ka xigtaan laakiin uu fanaan soomaali yahay u garab istaaga shalay waxaan leeyahay maanta heestii xalay hoos hadhay nacalaa shaydaan ku yaal midaas laakiin hadda kugu canaanan mayo maalin kalaan kugu jafaya maalin kale markuu dagaalku kaa dego hadda balaa kugu foordhe markuu dagaalku kaa dego baan kugu canaanan doonaa oo ku karbaashi doonaa heesta waxyaalo badan baa ka khaldanaa waree xaggee sooliyasanaag ku ilowday sooliyasanaag muf maa taaban haddii alla kuu roon yahay baranayo buuhoodle wa haddaa ba heesta ka hadlaysay maa baranayo buuhood burtlaya boorre bay sheegtahay naadi kugu dhici weyday iga tiiri meesha wariya iga tiiri hakala reebin reer puntland hakala reebin mise maxmedeya isaaq oo kula socday markaan ku canaanaya hadda dib baan u dhiganaya hadda balaa ku rifayse mar kalaan si fiican kuu canaanan doonaa laakiin heestaas far baa ku godan waana hees kale ka daba keentaa intaasaan kusoo koobaya daar waxaan leeyahay ha biqlayso group iyo ha nuqnuqlayso group iyo quuquuq iyo biqil anigu ma aqaane asdilana ma aqaana zaynana ma aqaana wax u dhacayo ma aqaan dagaalkan mid baan ka aqaana haddaan sacad maanta reerka ka tabagarana habeer gidir sacad baa ka ta sacad maanta haddaan isdagaalno sacad haddaan maanta dagaal ugu hayhayto ilaahay gacsiraan ku dhaatay hataa ilaahay u malayn mayo inuu dambi iga qorayo inaan isdilaahi sababtoo ah caadadii waxay noo tahay dhaqan bay noo tahay u malayn mayo in dambi iga yaraanayo in qof saacada aan isku faraguudisano aad baan idin salaamaya waxaan leeyahay waana kulan dambe xiisa leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu